ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa afraad waa alxamdulillaah ayaan dhahnaa. bar ilmahaaga in nicmad waliba aan ku mahadinno Ilaahay oo alxamdulillaah la yiraahdo markuu helo cunto, dhar, mar waliba iyo xilli waliba. Ogow, waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.